بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta soo gabagabeyn doonaa haddii ilaahay yiraahdo casharadii aan uga hadlaynay iimaanka iyo camalka wanaagsan. faman kaana yarju a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim faman kaana yarju liqaa'a rabbih faly'amal 'amalan saalihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. sadaqa Allahu al-'aliyyul 'aziim. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu quraanka in fara badan oo aad iyo aad u tiro badan markan tiro badan leeyahay macnaha waa xad dhaaf weeyaan. quraanka dhexdiisa rabbi wuxuu kaga hadlay qofkii iimaan iyo camal wanaagsan la yimaada inuu liibaanay adduunyo aakhiraba. marka arintaasu runtii waxay mudan tahay in aad loogu baraarugo oo dhaga fiican iyo maskax fiican la geliyo ay u baahan tahay. waxaan soo sharaxay oo casharo fara badan aan kaga soo sheekeeyay camalka saalixa muxuu yahay. waxaan kala soo cadaynay in turaasta islaamka ama kutubta islaamka aysan ba calaamadinba maxaa camal saalix ah oo iska noqota arrin mudlaq ah oo la kala aqoonin maxaa camal saalixa maxaase camal saalix ahayn maxaa kow ama maxaa laba ah wax noocaas adoo ala kulli xaal kuma sii dheeraanayo haddii ilaahay yiraahdo casharo fara badan uga soo hadlay. maantana waxaan soo gabagabay doonaa qaybta iimaanka ayaan ka hadli doonaa haddii ilaahay yiraahdo. waxaa laga yaabaa dad badan inay is yiraahdaan iimaanka waa maxaa laga hadlayaa iimaanka ummadda islaamka way taqaanaa haddii aysan iimaan aqoonin dee islaam ma ahanba xaqiiqo weeyaan taas. laakiin tusaale yar walaal waxa weeyaan qofku haddii uu badeeco haysto badeecadaasna uu ogyahay boqolkiiba boqol inuu ka faa'iideeyo wuxuu ka khayr badan yahay qofka badeeco haysta laakiin aan ogeyn inuu ka faa'iideeyo inuusan ka faa'iideeyin. tusaalahaas waad fahmi kartaan aan u malaynaya waxaan ka wado waxa weeyaan mar walba ogaalku waa muhiim inagoo marnaba aan meesha ka saaraynin ghaafiri dhanbi wa qaabili tawbi shadiidi alciqaab. allah subxaanahu jalla wacala inuu yahay toobad aqbale haddana uu yahay شديد العقابنا وياه سبحانه جل وعلا وقفنا وسكمل جنجلي معناه كآمن نقكرين محياته أن الله سبحانه وتعالى قضيه سا إلهي وحنا كبرينا سبحانه جل وعلا إنه نحرستي سا أو محياته نوجد يقه سبحانه جل وعلا واسع وحول بك واسع نقطي آمين. وحويا إيمانك أيان كهالينا أو جانبيك كل جديسن أيان كفير دونا دي لهي راح سوق دونا أيضا قرآنكم مؤمن ويقانه sidoo kale axaadiista nabiga ayaan ayadana qaybo kamid soo qaadan doonaa hadii ilaahay yiraahdo. ayadan aan dul taagnaa waxa weeyaan suurada leeyahay suurada nisa ayada 136 rabbi wuxuu leeyahay يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ayadan suura nisa ku jirta waxaan isleeyahay waa ayada ugu culus ee macnaha iyo ayada kale fara badan macnaha tiradii ka bateen سورة ممتحنة وكلته سيدا سوكلتي كهاليسا أيضا نفكتي سورة لحدنا هذه قرآنك أيضا أقول ضمن بيوكلته سوينا يقول هاليسا وحيوان نوعان وكلته وحيوان قفك مؤمن كالقرب وكلته إن مركا أيضا وحيلي هذا هاي أو رب أقويري يا مؤمنين مقعودة صحدا أقويري مؤمن هذا المغشنا وأتباع محمد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أتباع دي سويان مؤمن كاسل لي هذا رمية إلهي رمية رسول كيسان رمية كتابك قرآن كان رمية النبي محمد لقو سودجي كتبتي كهريسي التوراة إنجيلنا الرمية مرهرة لسودجي معناه حويان كتاب والباء إلهي سودجي سيدا أن قانه كتبت التوراة إنجيل إلهي بسودجي سبحانه جل وعلا. لكن خلطات الغيابة إن لقهره خلطات كاسنا قرآن كيا صحية شيء قرآن كأن كهر إيمانين وحويان شيء حق أو صحويان ولا قاضنية شيء لكن قرآن كهر إيمانية أو كتبت أسكجره وحويان قرآن كأيال راعية لما راعيه شيء قاس صوت وحويان بروتكشن صح كتبتها صم هيستان ومعناه إلى صح سيد القرآن إلهي وحفظه وكله سبحانه جل وعلا بني آدم أيها فرفريين وقعمين كتبتها هوري لكن القرآن كبني آدم مقعمين. الله سبحانه جل وعلا ما شاء كليه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ما شاءنا وحن لقى إياه وحيابها إيمانكم فريو إلهي إن أنا هو كفر وأنا نديدين ملائكتيسا aanan inkirin kutubtiisa aanan inkirin laga bilaabo quraanka illa ma wixii ka horreeyay wixii macnaha quraanka aan ka hor imaanaynin wixii quraanka ka hor imaanaya waxa weeyaan wax la bedelay weeyaan ama waa wax la qalday oo bani aadamku ay qaldeen weeyaan marka la raaci ma waxyaabihii quraanka uu diidan yahay. rasuushana kulligood waa isku mid maba la kala sooci karaba rasuusha ilaahay kulligood waa isku mid weeyaan. wal yawm al aakhir maalinta aakhirana in maxayat la rumeeyo waajib weeyaan qofkii ku kufriya inta la soo sheegay halis weeyaan wuxuu lumay buu leeyahay Allah subhanahu jalla wa'ala baadi fog ayuu lumay buu leeyahay Allah subhanahu jalla wa'ala wa'iyad billah. meesha marka waxaan naga maqan qadarka ayaa naga maqan sida aan naqaano iimaanku lix weeyaan
qadarka ayaa naga maqan. qadarku arrin ballaaran waa amarka ilaahay subxaanahu jalla wacalaa. waxaan isku dayi doonaa inaan soo qaato cashar kusoo qaato haddii ilaahay yidhaahdo. waa qadarku waa wax jira, dadaa ka murmurmaan, laakiin dalaalaadka iyo wax noocaas qaabka loo fahmaya waa laga yaabaa, laakiin qadarku wax laga murmi karo maahan. wax walba ilaahay wuu qadaraa subxaanahu jalla wacalaa. marka calaa kulli xaal aayaddan ayaan intaa ka soo qaatay. meesha waxaa ku jirta marka iimaan iyo mu'miniin ayaa ku jirta meeshaan. mu'min yaa la yidhaahdaa. waxaan doonaynaa inaan ogaano mu'min qofka la yidhaahdo muxuu u yaqaanaa mu'min qur'aanku mu'min wuxuu u yaqaanaa halkan ka baro suura anfaal suuradda 8 aayadda 2 aayadda 3 aayadda 4 ayaa si weyn u faahfaahinayaan. allah subxaanahu jalla wacala wuxuu leeyahay inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waidaa tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaanan wacalaa rabbihim yatawakkaluun. mu'min haddii aad doonaysaan inaad ogaato waa kan ahaa. waxa weeyaan kan ilaahay markii la xuso subxaanahu jalla wacalaa oo la yidhahdo ilaahay sidaasuu yidhi, qalbigiisu ou baqo ou ilaahay ka xishoodo ou qadariyo subxaanahu jalla wacalaa. haddii aayaadka qur'aanka lagu dul akhriyana iimaan u siyaado, rabbigiisna tala saarta, mu'min noocaas weeyaan. sii soco aayadda ku xigta maxay leedahay? aladiina yuqiimuuna salaata wamima rasaqnahum yunfiquuna. kuwa salaada tukada oo salaada ooga, wixii aan ku irsaaqnayna bixiya oo nafaqa bixiya. macnaha sadaqadii waajibka ahayd iyo tii aan waajibka ahayn labadaba meeshan waa la isku daray. sii soco ulaa'ika humul mu'minuuna xaqan. kuwaas ayaa mu'minka xaqa ah ayuu leeyahay allah subxaanahu jalla wacalaa. lahum darajaatun cinda rabbihim wa makfiratun wa risqun kariim. darajaad ayay leeyihiin rabbigood agtooda ah, dembi dhaafna way leeyihiin, risqi kariim ah oo aad u qiimo badanna way leeyihiin. marka walaalaha sharafta lahow, haddii aad doonayso inaad noqoto mu'min xaqiiqa ah, aayadahan iska fiiri. ilaahay markii la xuso waa in qalbigaada isbedel oo ku dhacaa, ood u dhaga nuglaataa, ood aqbashaa waxa ilaahay kuu sheegaya. haddii lagu yidhahdo kitaabka qur-aanka aayad hible ayaa sidaas odhanaysa, wax walba oo ay kaaga digayaan aayadahaasu qur-aanka uu kaaga digayo waa inaad ka istaagtaa. haddaad dembi u socoto waa inaad ka istaagtaa. haddaad dagaal u socoto waa inaad ka istaagtaa. haddaad laaluush iyo qish u socoto waa inaad ka istaagtaa. haddaad miisaanka qaldaysa waa inaad ka istaagtaa. haddaad maxay ahato isheeg zino iyo maxay ahato balaayo kale u socoto waa inaad ka istaagtaa. haddaad xan iyo balaayo kale u socoto waa inaad ka istaagtaa. macnaha waxa weeyaan aayaadka ilaahay markii la xuso waa in qalbigaadu ou wajilad quluubuhum u noqdaa. macnaha waa inuu ilaahay daacad u noqdaa subxaanahu jalla wacalaa. haddii qur'aanka lagu dul akhriyana waa in iimaan kuu kordhaa. oo masala haddii lagu yidhahdo ilahay dadka hala cafiyo yidhi, waa in iimaan kuu kordhaa tirahda waadin cafiyey. ilaahay runta hala sheego yidhi, waa inaad runta sheegtaa. ilaahay hala tala saarto, waa in la tala saarataa. macnaha sidaas weeyaan mu'minka xaqiiqada ah waa kaas ahaa. ilaahay dadka yana dilinu yidhi waanaad ka istaagtaa ooda dhiig dacdin. mu'minka xaqiiqada waa kaas ahaa. qur'aanku mu'min xaqiiqa ah qofka dadka noocaasa ayuu ku tilmaamay. sadaqada bixiya, salaadana sameeya, aayadaha ka horreeyana camal fala. intaas weeyaan xaqiiqadu, sidaas weeyaan. sidoo kaleeto suura xaj ayaa idana naftarkeedu ka hadlaysa aayada ku jira oo kaleeto sidaasoo kale ka hadlayaan. wajilad quluubuhum wasaabiriina calaa maa asaabahum walmuqiimi salaata wa mima rasaqnahum yunfiquuna. mu'minka xaqiiqada kuwaasa. sidoo kaleeto suura macaarij ayaa tegaysaan aayado fara badan laga soo bilaabo aayadda 19 ilaa aayadda 35 ayaa sidaasoo kale uga hadlaysaa. kulli waxyaabahaasi ka hadlayaan. sidoo kaleeto suura muuminuun oo kaleeto aayadaha ugu horeeyo dhan sidaasay ka hadlayaan, muumin ay ka hadlayaan. macnaha tira ma lahan, wax aad iyo aad u fara badan. suura mumtaxina oo kaleeto si weyn ayay uga hadlaysaa. markaana waxaan tegaynaa axaadiista nabiga sala allahu calayhi wasalam. saxiix bukhaari ayaan tegaynaa. iimaanka waa kan ahaa kitaabuliimaan ayaan ka hadlaynaa haddii ilaahay yidhaahdo. kitaabuliimaan waxaa ku sugan arrimo macnaha culus ayaa ku sugan runtii oo ka hadlaya iimaanka qaabka loo yaqaano. waxaa jira xadiis la qaatay runtii oo aad iyo aad u culus. xadiiskaas waxaa weeyaan waxaa laga wariyay asxaabi weyn oo la yidhahdo cabdullaahi ibnu cumar. waana xadiiska ugu caansan ee ummadda islaamku ay aad iyo aad u ictimaadido. waxaana la yidhahdaa islaamka waxaa lagu dul dhisay 5 qaybood. maxay ahaato 5 rugni ayuu iimaanku waa kaas ahaa. bunya alislaamu calaa 5 shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana maxamadan rasuulullah wa aqaama salaati wa itaa zakaati walxaji wa sawmu ramadaan. marmarna wuu kala hormariyaa maxamed rasuulullahna marmar wuu ka saaraa, marmarna wuu soo geliyaa. macnaha wuxuu leeyahay alfaad kala gedisan ayuu xadiiskaanu leeyahay. laakiin waxaa jira intaan waad fahmaysaan aan u malaynayaa. islaamku wuxuu ku dul dhisan yahay 5 qaybood. shahaadada iyo maxay ahaato shahaada ilaahay la rumaynayo subxaanahu jalla wacala, nabi maxamed la qirayo,
salaada tukanayo sakala bixinayo xajka soomka iyo maxayto iyo soomka intaas weeyaan waxa kaloo jira baab kale oo ka hadlaya cajiiba runtii anigu aad u jeclahay aad iyo aad aan u jeclahay waa kan ahaa xadiiskan waxa laga wariyay saxaabi weyn oo la yiraahdo Ubaadata bin Saamit nin la yiraahdo ayaa laga wariyay wuxuu kamid ahay ragii ka qayb galay bay'atul aqaba ama laylatul aqaba waxa la yiraahdo nabigu sallallahu alayhi wasallam markii uu ka hijroo rabay magaalada Makka ayuu wuxuu la ballamay dad maxayaato ka socday magaalada Madiina markaas ay maxayaato uu bandhigay diinta islaamka oo barayay wuxuuna yiri بايعوني أيوة النبي يقول بايع تما ويقول هالشيء على أن لا تشركوا بالله شيئا إلهي إن وحب له ذا جنين ولا تسرقوا إن حتى يسمينين ولا تزنوا إن زنا سمينين ولا تقتلوا أولادكم إن عروتين دلين ولا تأتوا ببهتان تفترينه بين أيديكم وأرجلكم بهتان يحد قذب إن لا إيمانين لجهين يجعمين أتقدرون تردنكم ولا تعصوا في معروفنا إننا العاسين معناها حديث كانوا exactly وحوافق سنيه بقول كيلو بقول صورة ممتحنة صورة اللي هذا سلاس أيوه هالليس صورة ممتحنة سلاس ويان معناها تيو شكلك الآن الحين ويان صورة ممتحنة أنا مرة بيسوي دكتور تي وعكسوا دكتور مقالة المدينة مركا النبي صلى الله عليه وسلم وحليه هي قفك محيها تو إن أرنتاس أوفية أجر كيس إلهي با معناها أهية ومعناها إلهي رالي بكون نقرية قفك أنت سمية بيع هذا إسلام كاللي راه هذا وقتها ساميرس كتال قفك إنه إلهي شركة وسمينين إنه ستوجن نما سمينين إنه سزانق نقنين إنه سوحد ديرين إنه صن بهتان يم فوضى الله إيمانين يم حياة فسادك وحيابه إنه عاصها محياة إيش إن معروف إنه سكر إيمان قفكو محياة إن قفك أنت سمينا إنه إلهي أجر ويسيني قفك كي معناها وحل كمذا اللي مادنا إنه عقوبة الدنيا هي عقوبة داسنا أي أنقنيسة كفارة أنقنيسة إن هدي إلهي إسك أسطورنا إن محياة إلهي وخدي أو دوننا عفينيو هدي أو دوننا أو عقابيو بإذن الله الكريم إلهي إنما عقاب دونا إن شاء الله هدي قفك أو توبت كانوا وحدن بها أو سميان أو كتوبت كانوا الله سبحانه وتعالى غفور رحيم ويان marka walaal sharafta lahu labada xadiis ee cajiibka ee tawxiidka ka hadlaya ama iimaanka ka hadlaya ama aqeedada islaamka ka hadlaya ayaan jeclaystay inaan ku soo idleeyo hadii ilaahay yiraahdo iyo aayadii quraanka ayo cajiibka ay inta badanna waan naqaanaa iimaanka iyo amalka wanaagsan oo la isku darayna waxaad ogaataan inay yihiin madhaafaanka macnaha madhaafaanka weeyaan waa meesha ugu dambaysa iyo meesha ugu horeysa diinta islaamka إلهي نوع أنفعه هدي أنا حق الشيء إلهي بيوافجي سبحانه وتعالى هدي أنا حق ربي عفش دم بدافع ودي سنة يا سبحانه جل وعلا ولا لها إلهي يكون أنفعه ولا إسكشر جرية ولا لها أن حياته وقالك ولا هنا أرمها نوع عنك لا توح بدنا كفائديا وحياة أردين تصيّه ونسيدا أوصى بندقينا وحويا إن أركتان وقف ضدك أو نقضه ضد معناها مسكحة الفرنتها يوحي أخرك كرا أو فيري كرا أيان محياته كده على مرور بهدي إلهي يرهدو أنا وحدنا كلهين أن أجر إلهي حقي سمويانه أدون معنا كلا أنا ضن كلا هنا نقول وأنا معناها فإذا كرادين إني وحنا عاسة أن أجر ضرب يقطعي يدين الإسلام كإن الله حياة الله فهمه وصدق له فهمه إلهي نوافعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.